مسؤولينta hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka Soomaalida oo kulan ku yeeshay maanta magaalada Muqdisho ayaa soo saaray bayaan ku aadan in haweenka Soomaaliyeed aysan ka mid noqon karin baarlamaanka cusub ee soo socda. qorshaha 30% lagu siiyay haweenka Soomaaliyeed ayaa si weyn u dhaliileen culimada Soomaaliyeed waxa ayna sheegeen in ay ka dambeeyaan dalalka reer galbeedka. bayaanka ay soo saareen culimada Soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ka koobnaa 10 qodob. culimadu waxay ka digayaan barnaamijka kootada dumarka waayo waa qorshe ay gaaladu wadato hordhacna u ah dhalaan rogga bulshada iyo burburinta qoyska. kootada dumarku waxay carqalad ku tahay in la helo doorasho xalaal ah waxayna qofka ka xayuubinaysaa xorriyadda codkiisa waana jajuub iyo amar ku taaglayn qaawan. waxaan u soo jeedinaynaa madaxda dalka in ay ka run sheegaan ilaalinta diinta iyo dalka ay u dhaarteen oo aysan qayb ka noqon qorshahaas lagula dagaalamayo ummadooda. gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Nuur Baarood Gurxan ayaa sheegay in ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ku dhaqmaan shariicada Islaamka. waxaan leenahay marka dadka madaxda ah oo ninkii hadlaaba dumarka kootadooda uu ku wardinayo waxaan leenahay dad madaxa baa tihiin waxaa la idin doortay in ummadda waardiyeysaan diinteeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda dalkeeda waardiyeysaan idin doortay qofkii ummadda khiyaana oo ummadda barnaamij gaar ah oo ku fuliya qofkaas ummadda ka mid maaha. gudiyada doorashada waxaan leenahay sharciga idin qasbi kara xaguu ka yimid yani qabiilkii 3 kursi la mid dumar ha noqoto sharcigaas xaguu ku yaala madasha anagu sharci nooma soo saari karaan. waxa weeye yaan la qasbin dadka qabiilku ciduu rabuu dooranaya. salaadiinta waxaan u jeedinayaa inaan lama qasbi kare inay u qaataan in la qasbi karo leedin ma qasbi karo waa inaad tidhaahdaan maya. qabaa'ilka Soomaaliyeed ee sharafta leh oo aad u diidan dulligaas iyo diin darradaas la wado ayagana waxaan ugu baaqay arrintaas inay diidaan. qaar ka mid ah ogaasyada iyo waxgaradka Soomaaliyeed oo dhankooda kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay hay'adda culimada Soomaaliyeed. aad iyo aad u mahadsanyihiin nin walba halku dhig uu qabsaday aniga halku dhigaygu wuxuu noqonayaa taageero baaqi culimada ka soo baxay iyo garab istaag walaalnimo waxaana saaran dhammaanteen ama culimo ha noqoto ama duubab ha noqdaan bulshada waxaa la yiraahdaa waxay toostaa markay culimada iyo dadka duubabka oo hoggaanka u ah ay iskaashadaan ay wada tashiyo sameeyaan bulshada sidee lagu hoggaamin karaa sidaan ku wanaagsan tahay ay yiraahdaan markaasay bulsho horumar gaari kartaa. marka aan ka soo bilaawno waqtigii 1946 dumarku waxa soo bixi jireen xishood daraadiisa martii kaliya xamarweyne ilaa meelahan kale hase ahaatee dumarka waxaa diyaar loo yahay hanqaltaaga madaxnimada iyo waxaas inay iska dhaafaan guriga madax ka yihiin anaga u hoggaansamayna waa saacideena wax kasta diyaar oo lanahay. sida idaacadaha iyaga galabnimo iyo fiidnimo ee xalay aad ku maqasheen iyo shalayba dalada culimada Soomaaliyeed ayaa ka digtay in aanan la qaadan fikirka qoondada ee 30% loo cadgoonaya haweenka Soomaaliyeed. hadba madaxa dalada culimada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika isla markaasina ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa qaba in dhawaaqa culimadu uu yahay mid yimid xilli aanan ku haboonin. haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah madaxaasi dalada culimada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika waxaa khadka telefoonka ee Minneapolis uu ugu waramay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac Farasle oo haatanba stuudiyaha ugu helinaya wuxuuna ku bilaabayaa waxa uu ka qabo go'aanka hay'adda culimada Soomaaliyeed. bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. marka hore walaalow adiga iyo bahda idaacadda aad u mahadsantihiin fursadan qaaliga ah ee dadweynaha dhageysanaya adduunka dacaladiisana way mahadsan yihiin.
markaan anigu si kooban uga hadlo arrinta ku aadan baaqa ama muxuu ahaa arrinta ay soo saareen culimada Soomaaliyeed qaybo kamid ah ee jooga waddanka Soomaaliya ee ku aadan arrinta dumarka ani waxay ila tahay inuu yahay shay aan meeshiisii munaasaba ku ahayn hadda maxaa jira waxa weeye diinta islaamku waxay u soo degtay rag iyo dumar waddanka Soomaaliyeedna wuxuu ka dhaxeeyaa rag iyo dumarku inay danta waddanka ka wada taliyaan maslaxada ummadda ay ka wada taliyaan waa mas'uuliyad Ilaahay uu saaray weeye subxaanahu wa ta'ala marka qofkii dumar ah tiraahdo aniga kartideeda iyo aqoonteeda iyo waxgaradkeeda ayaan leeyahay waxaan doonayaa marka inaan waddankayga wax ku kordhiyo inaan waddankayga wax ku beeriyo waxa weeye diin u diidaysaa ma jirto ummadaha adduunkuna u diidi mahayaan sidaa darteed waxaad moodaa wadaadada hadalkooda ama culimada hadalkoodu inuu yahay hadal aan meel aan haysanin xaqiiq ahaan inuu yahay ayaad moodaa aniga marka saasa iila muuqataa yani sheekh cabdiraxmaan shariif haddii si kale loo dhigo hadalkaaga waxaad dhihi karnaa ma jirto sabab diini ah oo haweenka ka reebaysa inay siyaasadda dalka ka qayb qaataan walaalow fiiri gabadha Soomaaliyeed maanta jirtaahu waa tabacadlaha Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Burco iyo Baydhabo fadhida ee ka ganacsanaysa waa tamxaa dukaamada muxuu uu furan yahay weeye waa tashaaha ku karisa ee banaanka ka ganacsanaysa weeye bulshada Soomaaliyeed midda biilka ugu badan u samaysa iyo dhaqaalada u soo saarta waa gabadha Soomaaliyeed weeye haday gabadhii sidaas tahay waa in diin u diidaynin oon ognahay gabadha diintu maxay ugu diidaysaa gabadhu inay tiraahdo qaraarka iyo go'aanka ummadda meesha laga gaadhay ayaan doonay inaan qayb ka noqdo maxaa jira bulshadu waa taydii weeyaan marka taladeedan doonaya inaan wax ka gooyo taladeedan doonaya inaan wax ka noqdo diin u diidi maysa yani marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye haddii loo ogolaado gabadha inay shaqaysato haddii loo ogolaado gabadhu inay wax barato haddii loo ogolaado gabadhu inay biil intay soo saarto ay ragga iyo carruurteediiba beesho haddii loo ogolaaday in loo diido oo la yidhaahdo diintu waxay ku diidaysaa inaad qaraarkii ummadda qayb ka noqoto waa hadal aan xigmad iyo caqli iyo cilmi midna ku fadhinin weeyaan saxna ma aha yani doodda culummadu waxay isugu biyad shubanaysaa inay ka soo horjeedaan qoondaynta loo qoondaynayo inay haweenku helaan 30% iyagoo u cuskaday inay arrintani tala shisheeya tahay oo mid Soomaaliyeed aysan ahayn islamarkaana qarankii Soomaaliyeed lagu burburiyay tala shisheeye haddana qoyskii la ramay in la burburiyo arrintaas maxaad ka leedahay walaalo waxa weeye qarankii Soomaaliyeed waa la burburiyay aniga ma ku qanacsani inuu tala shisheeye ay burburisay inaga iyo mustawaxumadeen bashirka soo socda si wanaagsan buu socdaa ninkii Maxamuud ka waran aad buu wanaagsan Mareykanka wata jaamac ka waran asiga xariim saacada Itoobiya wadata warsama ka waran warsamay fadama xaga galna Kenya wadata Abdullah ka waran Abdullah waxa wata maxaa Uganda in guuleed ka waran guuleed waxa wata maxaa Talyaaniga wata Abdulrahman ka waran Abdulrahman Saalax Arabta wadata ninka samatar ka waran samatar iyo maxaa ay sheegay iyo lagu shalqiyana waxa wata maxaa en Masar wadata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا waxaan wadana ma jiraan xayawaan baa tahay maxaa jira haddana waxaan wadana jiraan malaba sano bar meesha fadhin lahaayeen innaga iyo dadnimo xumadeena innaga iyo caqli xumadeena innaga iyo waxgarad la'aanteena ayaa burburisay qarankii Soomaaliyeed ilaa haddana uu burbursan yahay waa sax dawladaha waaweyn iyo wadamada iqliimiga dariska ah inay dan inaga leeyihiin adduunka dad baa la kala yeeshaa laakiin waxa burburiyay wax ku heshiina wax dhisan la waa inaga dhiigle midi ku dhiigle muruq ku dhiigle midi ku dhiigle mid ku dhiigle mariya ku dhiigle iyo moral ku dhiigle magac qabiil iyo matalaya ururada waji muruga qariso mashaqooyinkii dhacay ka madluunsan ma arkee maskaxdii iyo aqoontii miyay soo ilmaameen aswaa qayb weeye waxaan rabaa inaan in kale ku daro walaalkayow inagu markaan heshiin weyne oon islaynayno ayay adduunku inoo soo gurmado ciidamo inoo soo diro si inoo kala celiyo dhan waa ka saxo ma ahayn in gabdhaha Soomaaliyeed ay yidhaahdo koonto hal la siiyo waxay ahayd gabdhaha Soomaaliyeed bulshada ayay ka mid yihiin in aqoontooda iyo kartidooda iyo dinnimadooda lagu meel mariyo lagu ixtiraamo ayay ahayd sida markaan isu jirnay aan u heshiin weyne adduunku uu ciidamo inoogu soo diray oo inoo kala badbaadinayo ayaa adduunku wuxuu la yaabay inaan gabdhaheena dulminayna markaasaa wuxuu leeyahay gabdhihiina annaga idinka celinayna wax idin siinayna marka waxaa laga rabaa wadaadadu intaysan dad kala eedaynin inay bulshada dib ugu noqdaan oo yidhaahdaan annagu wax naga khaldan yahay mushkiladu waa annaga waxa gabdhaha iyagaba loo odhanayo war idinkiibaa idinku khasana inaad wax siisaan annagu wax naga khaldan yahay gabadhu waa gabadhayadii weeye marra waa xaaskaydii marra waa walaashay marra waa hooyaday marra waa habaryartay marra waa eedaday weeyaan sidaa darteed marka waxaa la doonayaa kaalinta ay bulshada ku leedahay in la siiyo ayaa la doonayaa xuquuqda ay bulshada ku leedahay inay hesho ayaa la doonayaa
diinkuna sidaasu ina farayaayo diinku waa cadaalad buu u yimid sinaan buu u yimid waddanka khayraadkiisana waa in loo sinaado taladiisana waa in loo sinaado waa inay gabdhuhu marka qayb ka noqdaan marka anigu dhan waa ka saxoo inay cid kale waxa inoo yeedhiso sax ma ahaan lahayn laakiin innagaa waxba qabsan weynay innagaa waxba yeedhsan weynay innagaa waxba samaysan weynay marka cidda kale way inoo soo gurmadaysaa gabadha soomaaliyeed ee kartida leh gabadha soomaaliyeed ee aqoonta leh gabadha soomaaliyeed ee dadnimada leh inaan loogu diidin inay bulshada qaraarkeeda iyo masiirkeeda iyo waxqabadkeeda qayb ka noqoto because waxba laguma ogolo gabar baa tahay arrintaasu sax ma aha ugu dambayntii imaam sheekh cabdiraxmaan shariif waxa ay culummadu la dardaarmeen kaaba qabiilada soomaaliyeed adiga maxaa tala ah oo aad kaaba qabiilada la wadaagaysaa odayaasha waxaan odhan lahaa shalay waddankan qabiil baa burburiyey maantana ayayna cadaalad darra burburinin gabadha soomaaliyeed ee aqoonta leh ee kartida leh ee soomaalinimada iyo dadnimadu ay dhab ka tahay ee daacad u ah bulshadeeda ha ka hormarinina ku nin sheeganaya oo qabyaaladiisa ah oon qiimo lahayn oo bulshadan waxba u taraynin oo bulshada burburinaya oo bulshada dilinaya ha ka hormarinina ee oday walowba gabadha ugu soomaalisan ee ku jirta muxuu ah qabiilkaaga soo saaro meeshaa keen ayaan anigu odayaashaan ku odhanaya taasaana laga doonaya inay odayaasha sameeyaan sheekh cabdiraxmaan shariif oo u warramay jaamac farasleh ayuu kaasi ahaa